waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee meel walba naga daawanaysa hadalkaygan yar ee kooban ee saaka wuxuu daba socdaa kii shalay oo aan ka hadlay qaadka hereriga oo laga yaabo dadka qaar inay khalad u fasirteen wixii aan idhi shalay waxaan ka hadlay oo doonayna inaan caddeeyo qaadka hereriga ee si Soomaaliya yimaada oo dadka qaar yiraahdeen qolay u xiran tahay ama dad gooni ah ay u xiran tahay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd inaan halkan ka caddeeyo inaan jaadka hereriga cid gooni ah u xidhnayn cid wal oo doontaaba soo dejisan karto waxaa looga baahan yahay qofkii doonaya inuu arrintaa galo inuu sharciga qaato laysanka qaato ruqsadda cashuurtana bixiyo intaasuu bay muhiimad u hayd marka haddii khalad la fahmay shalay ama si khalada loo turjuntay arrintu hereriga ay ku saabsan tahay qaadka hereriga ay ku saabsan tahay oo aan cid gooni u xidhnayn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi